بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn waxaan salaamayaa gudoomiyaha garsoorayaasha qareennada saaxiibadeeya eedeysanayaasha iyo dacwad oogaha ku mataliya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha dacwadda ee maxdarka fadhiya. waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. mudane gudoomiye garsoorayaal, aniga oo abukaata cabdisaaq xaaji cumar, qareenna u ah cabdiwaaxid muxsin ibraahim, waxaan intii aan ku guda jiro hadduu ilaahay yidhaahdo difaacayga si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed farqadiisa labaad aan ka fiirin doonaa difaacayga. waan soo koobi doono 3 angal ama 3 dhinac. mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, marka koowaad waxaan tilmaami doonaa shakhsiyadda cabdiwaaxid muxsin ibraahim. dabcan waxaa lagu soo eedeeyey qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. qodobkaas ma ku suntan yahay. sidoo kale waxaan dib milicsi ugu samayn doonaa maxkamadda, caddayn ahaan aan ugu soo gudbin doonaa. dabcan wax walba eed walba oo la soo gudbinayo waxaa sal looga dhigayay hanti dhowrka baaristii uu sameeyey. dabcan baaristii uu sameeyey iyo su-aalihii maxkamadda horteeda uu ka sheegay uu ka caddeeyey ayadana bandhig ayaan ku samayn doonaa, ama maxkamadda ayaan u tilmaami doonaa inay dib ay u fiiriso maxay tahay sababta ay u soo baareen, iyo maxkamaddii darajada koowaad ee cabdiwaaxid muxsin ibraahim ku weysay faldambiyeedka lagu soo eedeeyey markii ay su-aalaha weydiinaysa maxay ku jawaabeen. sidoo kale waxaan qaadaa dhigi doonaa oo aan jajabin doonaa qodobka 241. saddexdaas ayaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo isla fiirin doonaa. marka hore mudane gudoomiye garsoorayaal, muwakkilkayga waa shaqaale ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. wax gaar ah uu si gaar ah uga tirsan yahay wasaaradda ma jirto. dabcan cabdiwaaxid ama muwakkilkayga waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka intii lagu guda jiray oo uu soo gudbiyey waraaqad uu ku sheegayo inuu kaga tirsanaa waaxda maamulka iyo maaliyadda. waraaqadaas oo tilmaamaysay in cabdiwaaxid lagu ataaj gareeyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, laakiin wasaaradda warqad ka soo baxday oo meel gaara loogu qortana aysan jirin oo aysan keenin haba yaraatee. dabcan waxaan rabaa si aan ula fahanno oo aan meesha uga saaro eedii ahayd waxa uu si dhuumaalaysi uga shaqaynayay, waxa uu si amar la-aan ama si anigoo marka hore intaan 241 aanan dhigin waxyaa hadalladii kale ay ku darayeen anigoo fiirinaya. dabcan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ma lahan waax HRM ah oo gaar oo mustaqil ah oo taagan ma lahan. guddiga markii la shaqaalaysiinayo guddiga shaqaalaha rayidka toos ayay ugu ataaj gareeyeen waaxda maamulka iyo maaliyadda ayaana u taagan booska HRM-ka. shaqadii HRM-ka guud ay lahayd kofarka waaxdaas ayay ku dhex jirtaa. okay. mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, dabcan waaxda lagu eedeeyey cabdiwaaxid inuu si dhuumaalashi ugu shaqaynayay waxaa loogu adeegaa shaqaalaha ajaanibta. waa wax loogu adeego shaqaalaha ajaanibta. dabcan waxaa ka timid waaxdaas cabasho aad u fara badan
taasoo ah maadaama loo adeegayo shaqaale ajaanib ah cabdiwaaxidna uu yahay shaqaale hoosaad grade B ah waa grade B waa shakhsi grade B ah una nin luqadahan uu yaqaano ilaa dhowr luqadood uu yaqaano howlkarna uu yahay waaxdaasna uu ka tirsan yahay ayaa amar wasiir ayaa waxaa loogu ahtaaj gareeyey muddo kooban oo sanad ah waxay ka bilaabanaysay dabcan muddo kooban ayaa loogu ahtaaj gareeyey kadib muddadii koobnaad loogu ahtaaj gareeyey dhammaan waxaa jirtay in maxkamadda horteedii la keenay markhaatiyaal iyo dad kale kulli iyo cadeymo iyo wax dhan way ka wada horreeyeen xilliga la sheegayay dembiga u dhaca lahaa way ka wada horreeyeen qaarkoodna waxayba lahaayeen baa annaga qaadanaba dukumentiyada iyo dhammaanteedba dabcan aadii xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka kuma cadeen xilliga uu ka howlgeli jiray maba ku sheegin ba ayaga aada xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka halkan ka soo jeeday maba aysan ku sheegin eedooda qofkan shakhsigan waaxda uu ka tirsan yahay maba yaqaanaanba shakhsiyadiisa iyo halka uu ka howlgeli jiray iyo xilliga uu howlgalay iyo xilliga uu shaqada ka baxay intaba bataata maba yaqaanaanba iyo waaxda uu sida gaarka uga tirsanaa sababtay u sheegi waayeenna maba jirin waax si gaar ah annagaa sheegin oo waax si gaar ah uga shaqaynayay dabcan ma aysan jirin sidoo kale cabasho labada waax ay sheegayaan tusaale ahaan waaxdii uu ka tirsanaa ee warqadeeda ay keeneen leeyihiin uu ka tirsanaa cabasho ka timid oo ay leeyihiin cabdiwaaxid soo xaadiri waayey warqad cadaynaysa ama inuu si dhumaalays uga shaqaynayo macluum uu ahaa amar wasiir oo ku tagay nin luqadaha yaqaano uu ahaa sidaas ayuu ku tagay dabcan waxaan rabaa aniga oo si gaar ah u fiirinaya difaaciga qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aan soo qaadano dabcan qodobkan oo ka hadlayo lunsi xoolo dadweyne yani dembi lunsi xoolo dadweyne ka hadlayo dabcan waxaa jira tiirar saldhig u ah qodobkaas oo ay laga marmaan u tahay in uu ku guntamo si loogu xadgudbo looguna mutaysto ciqaab waxaan rabaa inaan midkiiba soo koobo ugu horeyn shuruudaha laga doonayo qofka lagu eedeynayo falka lunsi xoolo dadweyne waxaa ka mid ah inaan mid walba markaan sheegay saddex ayaa la rabaa in laga helo mid walba saddexdaas waxaan rabnaa inaan isla miisaano shakhsiga aan sheegayno in loo xil saaray adeeg guud adeeg guud dabcan xoolo ayaa lagu soo eedeeyey cabdiwaaxid waa sargaal guud inuu sargaal guud yahay oo loo xil saaray sargaalkaas guud adeeg guud sargaal guud waa yahay waa sax laakiin sargaal guud oo lacag ama xoolo loo xil saaray ma yahay waayo ama adeeg xoolaha lagu eedeeyey xoolahaas ma loo xil saara lacag inuu xareeyo inuu qabto inuu diiwaan geliyo inuu haayo inuu kaydiyo inuu dhammaan inuu bixiyo moomaya inuu yahay sidoo kale qof uu xilka ama mas'uuliyad ama waajib ka saaran yahay hanti guurta ama gurto ama lacag intaba waa maya waa shakhsi iska shaqaale hoosaad grade B ah in hantida la xaday ee ay gacantiisa ku jirto yani gacantiisa ay ku jirtay wax hantiya oo la sheegay cabdiwaaxid waa loo wakiishay muwakilkayga maysan jirin dabcan waxaa shardi ah in hantida uu haayay ama loo wakiishay ama intaba dhammaan intaasba lama keenin dabcan saddexdaas
shardi waa qofka lagu eedeynayo haddaba shay baa la lunsadaa la leeyahay maxaa asagana hantida la lunsaday muwakilkayga shuruudaha laga rabo maxay tahay haddii la rabo in lagu eedeeyo haddii la rabo in shay la lunsaday qof lagu eedeeyo maxaa looga baahan yahay dabcan waa hanti dawladdu ay leedahay inay tahay oo asaga loo wakiishay hanti dawladdu ay leedahay maadaama 241 si gaar ah laga yahay lacag oo lunsaday leeyahay 241 oo qeexayo 240 ma la rabo sharciga mar walba meel walba in ama xaggan loo fasiro ama xaggan loo fasiro sharcigu waa fasiran yahay maxkamadana iga aqoon badan laakiin waxay tahay in hanti qaran ku leeyahay qofkan loo wakiisho in hanti dawladda marka laga lunsaday ay ku jirtay gacanta qofka lagu eedeynayo hanti ma jirtaaba hanti lagu eedeeyay wakilkayga batatan hanti ma aysan jirin loo wakiisho in hantida ay tahay in hantida lacag ama hanti guurta ah ay tahay oo qofkan loo wakiishay si gaar ah asiga la yiri adaa mas'uuliyadda iska leh ma aysan jirin mana ahaynba qof shakhsi ah oo saxiix leh awood leh wax bixin kara wax soo gelin kara inta muusan ahayn in hantida oo lunsaday qofkaani oo ku darsaday hantidiisa hanti oo leeyahay maanta wuxuu leeyahay muwakilkayga hantidaas oo leeyahay hantidaas oo wuxuu ku darsaday hantidii qarankana ma jirto oo la keenay maxkamadda horteeda bal akoon ayaa la soo gudbiyay intii lagu guda jiray maxkamadda darajada koowaad akoonka iyo backgroundka 6 milyan ayaa la staaliyay iska daay inta iskumana aysan hatta akoonkiisa dhaqaaqa marma ma aysan marin bal maxkamadda waxaan rabaa inaan aniga meel walba tilmaamayo inaan maxkamadda u soo gudbiyo shaqaale grade B oo waliba hatta waxa way lagu leeyahay deyn waxa loo yaqaano muraabaxa ayaa bangiga akoonkiisa laga jartaa dhaqaaqiisa ilaa hadda maanta lacag yar oo spare parts oo ka shaqeynayay oo ka deynsaday marka maxkamadda waxaan rabaa ayadana taas inaan u soo gudbiyo anigoo raacinaya cadeen walba aan iskaga rugayo hadalka la sheegay kaliya waa sheegasho kaliya ay eeda ku salaysnayd sidoo kale waxaan rabaa maxkamadda inaan la wadaago ayadana waa shaqaale ku meel gaar ah oo grade B ID cardkiisii isagana waan la wadaagi doonaa mudane gudoomiye garsoorayaal haddaba qodobkan laguma dhaqayo muwakilkayga sababaha soo socda awgood waxaan sheegay shuruudaha la doonayo qofka in laga helo waan sheegay lunsaday sidoo kale hadda waxaan sheegi doonaa sababaha aan qodobkan muwakilkayga oo san u qabanayn ma jirto dakhli dawladeed oo uu xareyntiisa mas'uul ka ahaa مسؤوليتيسنا كما مid ahayn xareyn kaydin hayn maamul lacageed intaba maysan hayn sidoo kale muwakilkeena ma ahayn sargaal lacag qabasho inaan isla fahanarna sarkaal lacag qabasho ma ahayn waa nin wuxuu ahaa luqadaha yaqaana luqadahaas oo maaragtay maadaama shaqada waaxda ay tahay adeegida ajaanibta muddo yaroo kooban oo sanad ah ayaa waxa loogu igmaday oo loo amar wasiir oo ku tagay in shaqada halkaas ka socota wixii culays oo ka waxeeyo asagoo ka tirsan waaxdii oo maamulka iyo maaliyadda oo shaqaalaha dhan qof walba oo loo baahan yahay ayaa laga wadaa waaxda maamulka iyo maaliyadda ma jirto lacag ama hanti guurta ah oo uu qaranku u dhiibay sababaha la xiriira shaqadiisa adeeg bixin lacageed ama hayn ama qabasho intaba sabab lagu eedeeyay 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ma jirto maxaa yeelay wax xil ah yani xil uu haayo ma jirto
sidoo kale waaxda la leeyahay si gaar ah uga tirsanaa waaxdan oo ka tirsanaa ma aysan jirin wax loo keenay oo cadeyn ah haba yaraatee wala leeyahay waaxdan oo ka tirsanaa waxa ninka hadba waxa laga tuuri jiray wax walba laga tuuri jiray waxa nin luqawiya shaqaale iska grade aanan lahayn ba awood sida aan maxkamadda haddaba aan u soo gudbinay dabcan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eeda waxaa la rabaa inay si toos u taabanayso qofka lagu eedeynayo maxaa xiriir oo ka dhaxeeya dabcan waxay ku soo celceliyeen oo ay ku soo celceliyeen in cabdiwaaxid uu shaqaale si dhuumalaysi uga shaqeynayo inay eragaas fasiraan rabaa marka shaqaalaha inaan isla fahanaa rabnaa dowladda waa imisa nuucuusa yahay isaga waa 3 nooc kaliya waxaa ugu horeeya shaqaalaha dowladda professionalis waa shaqaale joogto ah oo mushaar qaata xirfadna leh sida caadiga ah qabta ama kaaliyaha ahaado ama shaqaale kale ahaado ama agaasimaha ahaado shaqaale caadiya oo maaragtay agaasimahan waa shaqaale caadi oo professional oo xirfad qaato mushaarkiisa uu go'an yahay waana shaqaalahaas ayuu asiga ahaa ma ahayn nin mas'uuliyad hay labada nooc ee kale ee la yaqaan ee shaqaalaha dawladda ay noqon karaan ma ahayn labadaas nooc waxay ahaayeen waa honorary official ama agaasime ama wasiir ama nin mas'uuliyad haya amar iyo saxiix iyo wax dhan leh ma ahayn sidoo kale ma uusan ahayn midka ayagu ay ku sheegayaan aniga sidaan u qaatay oo ah de facto official waa shaqaale aan sharciyeysnayn eragaasna waa ka dhawaajiyeen waxa si sharciyeysan sidaasha waa shaqaale sharciyeysan waxay maxkamadda horteeda keeneen shaqaale aan sharciyeysnayn oo markii la leeyahay maxkamadda horteeda waxaaba la keenay warqadii lagu shaqaaleysiiyay marka waxa isweydiin mudan shaqaale aan sharciyeysnayn markii la leeyahay taas waa arrin maamul iyo case kale iyo meel kale 241 ayadana ma soo galayso dabcan waxaan jawaab celinteena ku soo koobaynaa ma jirto lacag uu mas'uul ka ahaa oo loo igmaday muwakkilkeena mana hayn sarkaal xil haya waxa uu shaqaale ka tirsanaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aniga ku soo celceliyay arrintaas dabcan waxaa jirtay waxa uu mudane gudoomiye shaqaalaha ku soo biiray wasaaradda 2000 waaxda sharciyada ee lagu eedeynayo waxa uu wasiirkii ku soo ataaj gareeyay 2021 bisha 7 isla faldambiyeedkii xafiiska uu 241 uga dhigayay dadkii dhamaa uu dhahayay marqaatiyaasha u keenay iyo dadkii shaqaalihii ka tirsanaa iyo dadkii faldambiyeedka ay sheegayeen faldambiyeedka xilliga uu dhacay xilliga uu ka adka ay lahaayeen wuu ka dambeeyay 2021 bishii 6 Aliyo Cali ayaa wuxuu qaatayba tiim barihii la sheegay waxba lagu soo suuq lahay hadii tahay lacagtii wixii mataqaana la waxeenay dhamaan mana jooginba طبعا anigoo aan arintaas iyo hadalkayga difaaciga insha Allah dib ugu dhiganaya ayaa waxaan leeyahay cadeymaha ma jirin wax cadeyn ah oo 241 ah oo muwakkilkayga ama la leeyahay uu ku suntan yahay ama uu qalmaa oo la rabo in lagu soo eedeeyo ma jirin haba yaraatee waxaa jirta document maxkamadda horteeda la keenay general CD la keenaa jirtay inaan ka jawaabo xataa ma lana maxay yeelay waxa laga keenay immigration anigana taas ma isdhahay xataa way u qalmataa xataa laayiq u tahay ma isdhahay ma muwakkilkayga maxay yeelay ma ku saxiixna shaqo loo wakiisha ma ahayn shaqo meesha ku shaqeynay ma aysan ahayn waa dhammaan waa hal mar ee digrid in bay ahayd marka waajibkii baa si qaldan isleeyahay marka maxkamadda anigoo rabo inaan ku sii xeeliraado maxkamadda way maasan tahay
فرصة يسي سينا دفاع موكل كيغا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنتهي أبو كاتي محكمة waxa ay ugu dambeyn fursad siinaysaa difaaca Eedeysane Cabdullaahi Maxamed Cali.